حبيبة علي warsame iyo bishaare Sheekh Cali Xasan oo kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Indian Ocean ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen qaabka gudiyada baarlamaanku ay ula xisaabtamaan hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. madasha ay labadan gabdhood ku soo bandhigayeen cilmi baaristaasi ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka sare ee jaamacadda Indian Ocean, aqoon-yahano iyo arday. ugu horeyn Xabiiba Cali warsame iyo bishaare Sheekh Cali Xasan ayaa ka waramaya qaabka ay u wajaheen cilmi baaristooda. cilmi baaristan waxaan u sameeynay markaan aragnay baahida loo qabo inuu la xisaabtan dhex maro guddiga baarlamaanka iyo wasaaradaha xukuumadda. golaha baarlamaanka federaalka wuxuu awood u leeyahay la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dawladda ee heer qaran dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka. waxaan hortiina u taaganahay inaan idinku soo gudbiyo cilmi baaris aan ku soo sameynay qaabka guddiga baarlamaanka ula xisaabtamo xukuumadda federaalka ah. habka cilmi baaristeena waxaan isticmaalnay habka xog abuurinta su'aalo weydiin. gudoomiyaha jaamacadda Indian Ocean Engineer Samawade Maxamed Cali Daahir oo ka hadlay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay bulshada ayaa ammaan u jeediyay labada gabdhood ee soo bandhigay cilmi baarista ay ka sameeyeen qaabka gudiyada baarlamaanku ay la xisaabtamaan hay'adaha dawladda federaalka ah. waxaan rabaa inaan xogaa wax taabto gudiyada baarlamaanka leeyahay maxay yihiin qaabkee u shaqeeyaan maxay qabtaan inaan xogaa noo fiican rabaa. gudiyada qaabka u shaqeeyaan waxa waaye wasaarad walba guddi ku aadan oo la xisaabtan qaabka ula xisaabtamaan waxa waaye hadda intii sharciyeedkii wasaaradda waxbarashada oo kala miiska saaran guddiga arrimaha bulshada iyo wasaaradda waxbarashada iyo wada shaqeeyo hal maalin ma laba maalin ma waqti dheer iyo dad kale oo ka madax bannaan. Nimca Maxamed Bashiir, Cable TV, magaalada Muqdisho.